الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر الله أكبر. إلهي بمهد له ما أنت سوكين كيني إنه عافمات قبنا دلكين يو نبض قبا xanuunkii aafadaha ee COVID-19 kii oo dalka ka yaraaday inkastoo wali jiro inaynu si sharaf iyo karaamo leh ugu ciidno garoonka weynaa ee magaalada Berbera ciida Ciidal Adha ee sanadkan marka ugu horeysa waxaan hambalyo u diraynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland marwooyinkiisa madaxweynaha ku-xigeenka golayaasha qaranka ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan dadweynaha reer Soomaaliland bulshada reer Berbera iyo reer Saaxil waxaan leenahay ku ciida caafimaadsan ilaahay nabadgelyo haynaga dhigo aad iyo aad baa u mahadsantiin runtii farxad weyn way inoo tahay laba dardaaran baan halkan ka soo gudbinaynaa dardaaran waxa weeyaan inuu jiro wali xanuunkii COVID-19 reer Soomaaliland iyo reer Berbera inay digtoonaadaan wasaaradda caafimaadka la shaqeeyaan qodobka labaadna waa qodobka markaas aan ku celino markay ciidaha iyo maalmaha farxadaha tahay magaalada Berbera waa magaalo dalxiis aad iyo aad baa loo yimaadaa badda dadka imanayna ma yaqaanaan dabaasha maamulka gobolka iyo degmada oo isku duuban dhammaan ciidamada bilayska iyo wasaaradda caafimaadku diyaar bay u yihiin itaalkooda inta awalba qaban jireen in ka badan ba inay qabtaan laakiin waxaan u sheegaynaa dadka ka imanaya dalxiisayaasha gobolada dalka ka imanaya inay taxadir fara badan sameeyaan waliba xagaabaa lagu jira badana waa kacsan tahay إلهي سومالان هبركيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بقى محل سبحانه وتعالى إنه قري إنه ما أنت حالكم كنتوا كانوا صلاة عيدة وإن نسيا علماء إنه شيء يعني إلهي سبحانه وتعالى ما أنت ويننا وإنه كعلنا أفكينا كعلنا أذكرته أيدين تلنا فرس سواء تكبيرته هي حمدية لبضل من إسراء إنه إن إلهي ويننا وإنه كل علينا ما هالكن ممكن شغله كليه مركز برجة تجلس هي مركز طريقة مرة سو هي مركز صلاة كبح سبعة وين تكبيرته إلهي وين أنتي سوينا كل علينا حمد جنا وين كل علينا وين ودوقنا هاي ظروف فرق بدن باين صوم عليه وحاولنا به تن عالم قولا كي عبسي وين إلهي وين من ولا تفعل وين أنا سمقلني أو ده سمقلني مقلني waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah mid yar iyo mid weyn maanta waa maalinta ay diintu fasaxayso in laga soo saaro carruurta guryaha laga soo saaro in qof kastaaba uu farxo qof kastaaba inuu ubadkiisa la farxo inuu erihiisa la farxo inuu bannaanka u soo baxo inaynu muujinno ciidda ay leenahay islaamku leeyahay waa ciidan weeyaan maha ciidaha krismaska ah maha kuwa jacaylka waa tan ilaahay subxaana watacaala noo jideeyey oo uu leeyahay xitaa curyaamiintu waa inay dibadda u soo baxaan oo dadka muslimiinta waa inay muuqataa cududoodu iyo miisaankoodu waa inay muuqdaa oo farxad lagu muujiyaa laba qodob umaan doonaya inaan uga faa'iidaysto waayo maanta waxa weeyaan inaynu isku celcelino xuska ilaahay subxaana watacaala iyo xamdigiisa qof kasta oo halkan joogaa wuxuu maraa meertan nololeed buu maraa waagii bariyaba waxbaa kaa go'ayaa noole waagii bariyaba waxba uma kordhaana waxbaa ka go'a marka cibro qaadasho waxaa kugu filan naftaada qura ilaahay subxana watacaala wuxuu leeyahay wa fii anfusikum afalaa tubsiruun badu nafahaagu neeg waa idinka dhacsanaysaa shaarbaad yeelanaysaa garbaad yeelanaysaa timaha ku caddaanaya waad gaboobaysaa sidaasaad meerta nololeed u joogtaa aanaad weliba adduunyadan aad ku tahay qof tembareeriya ma tihid qof barmanaaku ma tihid qof sii joogaya ma tihid qof meerta nololeed maraya baa tahay meertada noloshaada inta aad ku jirto hagaajiso oo sida ilaahay subxana watacaala ku farayo yeel kaasaad markaa ifii aakhira baad ku badbaadaysaa qodobkan ku celcelinaya waxa weeye waxay nahay dad muslimiina qofka muslimkaana wuxuu leeyahay sifaad ilaahay subxana watacaala kitaabkiisa ku sheegay
oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam noo sheegay waxa weeye qofka muslimka ahi walaalkii waa inaanu qalbiga waxba ugu qabanin waa inuu walaalkii iska cafiyaa markaasuu dhulku barakoobayaa waa inuu naxariistaa waa inaynu isu naxariisanaa waa inaynu iska warhaynaa waa inaynu gudubo gurigeena guriga ku xiga iyo qofka agtiisa u dhowe la nool waa inuu ka warhayaa kii adigu aad wax siin jirtay haddaad fiilada la gasho aduguna aad baahato dee halkaas waxay noqonaysaa casaan bay noqonaysaa marka waxa weeyaan qof kastaaba qof wax tari karaa qof kastoo inaga naga midina waa inuu wax taraa walaalkii hoos u eega guriga ku xiga iyo jaarkiisa waxaan uga faa'iidaysanayaa hal qodob oo jaaniskan lagu celcelinayo oo ah dadka reer berbera ee gobolkan ku nool waxay nasiib u heleen in maalmaha ciidda iyo maalmaha farxadda loo soo hiloobo oo ay gobollada kale u soo hiloobaan oo ay u soo tacabiraan ka yimaadaan ama laascalada ka yimaado ama booramaa ka yimaado ama hargeysaa ka yimaado ama burcaa ka yimaadee waa gobol loo soo hiloobayo oo dad faraxsani ay noo imanayaan kow dadka faraxsan waa in la soo dhoweeyaa qalbi furan waa in lagu soo dhoweeyaa soo dhoweyn fiican waa in lagu soo dhoweeyaa dadka reer Somaliland oo ugu horeeyo madaxweynaheena jamhuuriyadda Somaliland odayaasha qaranka dhammaan shacabweynaha reer Somaliland ummadda muslimiinta meel kasta oo ay joogaan dhammaanba waxaan leeyahay ciid wanaagsan naguna ciida anigu gobolkan yar baan idin la joogay 20 cisho meelahaas la dhowr 20 cisho noqonaysaa waan idinku cusubahay intaaba waxaan ku mashquulsanaa arrimo nabadgeliyo kullay waad isleedihiin gudoomiyaasha maxay halkii ka keeneen waxaan doonayaa inaan brief yar idinka sii siiyo oo aan nabadgelyada meeshii aanu tagnay aan idin sheego waxa weeyaan runtii meel fiican baanu kaga nimid arrimihii halkaa yaalay waanu soo dhammaynay dadkii walaalaha ahaa gacmaha la isku saaray arrimahoodu xaalad nabadgelyo oo fiican ayaanu kaga nimid waxaan doonayay dadka gobolka inoo degan dhammaantood inaan ku dardaaro inay nabadgelyada inoo adkeeyaan oo aynu xukuumaddeennana la shaqayno oo ay had iyo jeer wixii ay dareemaan ee liddu ku ah nabadgelyada ay soo sheegaan oonu ka wada shaqayno